joogniyo afartiisa geesood waxaan kugu asteeyaa maalmar uurahooya may gelin ifkana kuma naraag weli lama ammaanin inkastoo uu aadamuhu ka siman yahay isdoorashada waxa aynu qormadani ku eegi doonnaa waa kii jacaylka dhabta ah afartiisa geesood waxaan kugu asteeyaa maalmar uurahooya may gelin si kastaba ha ahaatee jacaylku waa wax ku abuuran noolo kasta oo ku dul nool uunkan aynu ku noolnahay haddaba sida aad ciwaankan ku maqasheenba waxaan rabnaa in aan idin iftiiminno waa kii jacaylka dhabta ah haddii aan eegno nambarka koowaad qofka sida dhabta ahi wax u jecel waxa uu ilaaliyaa uuna sharfaa lamaanaha kale ee uu aadka u jecel yahay si aanu u daryeelin naftiisa waxa uuna noqdaa kan ugu dambeeya ee aad habeenkii ku seexato kuna soo toosto qodobka labaad qofka jacaylka rasmiga ahi uu helo si dhab ah ayuu u ilmeeyaa una ooyaa mar kasta oo uu xasuusto lamaanaha uu jecel yahay ama ay jeceshahay waxa uuna ka go'aa dhammaan cunista cuntada iyo cabiddaba qodobka saddexaad haddii uu ogaado lamaanaha uu jecel yahay halka ay u badan tahay waa uu u boqoolaa iyada oo ay u tahay qowraansigeedu xumad jabin qodobka afaraad mar kasta oo ay soo gasho ama uu soo galo meelaha la isugu yimaado ama laga adeegto waxa uu ka baadi doonaa oo uu indhaha la raacaa mar un sidii uu ku arki lahaa qofkii ay naftu jeclayd qodobka shanaad mar kasta oo uu u soo dhaco teleefoonka isaga ama iyaduba waxa ay jeceshahay in uu noqdo codkii lamaanaha ay sida dhabta ah u jeclayd tusaalo inaan noqdo tilmaam dadku iga dhigtaan tallaabaan u soo jiraa taariikh dheerna waan ku sugay jacayl baatankay ka weyn anigu uma taagaye ku talagal hoy ku talagal inaad timaad taleefon waxii ma tare jacayl baatankay ka weyn anigu uma taagaye ku talagal hoy ku talagal inaad timaad taleefon waxii ma tare qodobka lixaad haddii aad lamaanaha aad jeceshahay uu la socdo rag ama dumar waa inuu muuqaalkiisu uu si gaar ah kaga duwanaadaa bildhaan ahaan masaafo ka durugsan kuwa kale qodobka toddobaad marka uu ku soo eego qofka aad jeceshahay ee ay indhahagu qabtaan indhihiisa waa aad naxdaa garaaca wadnahaaguna si aan caadi ahayn buu u sii kordhaa waxaa qalad ka gala socodkii caadiga ahaa qodobka siddeedaad mar kasta waad ka fikirtaa wax kasta oo aad qabato waxa ay ku xasuusisaa jacaylkiisa waxaanad jeceshahay hadalhayntiisa iyo warkiisa lamaanaha aad jeceshahay ilbiriqsi kasta qodobka sagaalaad qofka jacaylku biyo dhigaa kuma dhiirado inuu si caadi ah ula hadlo lamaanaha uu jecel yahay mar kasta oo uu la hadlana waxa uu dareemaa khajilaad galgacalka awgii ah qodobka 10aad meel kasta xili kasta iyo wax kasta oo uu qabanayo qofka wax jeceli waxaa qalbigiisa ka dhex guuxa lamaanaha uu sida dhabta ah u jecel yahay qodobka 11aad
qofka sida dhabta ah wax u jecel waxa uu mar kasta doorbidaa in uu ka maqlo lamaanaha kale ee uu jecel yahay ereyga ah waan ku jeclahay. qodobka 12aad oo ah midka ugu dambeeya, haddii uu ku hayo jacayl dhab ah, aragtida indhahaaga iyo aqligaagu waxa aad ku lamaanaysaa lamaanaha aad sida dhabta ahi aad u jeceshahay. mar walbana waxa aad jeclaataa ilaa iyo xad agjooggiisa, muuqiisa, codkiisa iyo sheekadiisa, waxaana uu kuu noqdaa waxa aad adduunka ugu jeceshahay. waxaan moodayaa malabkii shinnida iyaduna ma oga waxaan moodayaa midhii jannada iyaduna ma oga waxaan moodayaa miraa la da'ay mirta dhexe habeenkii iyaduna ma oga markii aan hordhigay inuu mina jacayl markii aan hordhigay